بسم الله مقعي ولقمان محمد نور ودكتور أما كبحة سكول كوسد حيا سريع الفرج دادي و 18 جر حالي مركي يعني نتيجة لو دواقعي أو تلفزيون قرنك لو دواقعي مركي يعني عن كم أغلى وزيرك يعني لقمان محمد نور أيا كارنت كواد قالي ما شاء الله درينك قاعد أيو وقع سناي قاعد أيان أوفر حي محايا لي يعني أنت سنة واحد رجيني سهدات هشو أنت سو أرضي أو examination كشو الله واتني سألكم يدور أرضي أنا كارنت كواد كسو كشو عادي wax ii farxad ah oo aad igu weyn ay ahayn luqmaan ahaan hadii la iska soo qaado kulli horta aniga yaani dadaal badan waan sameeyay qof kastana dadaalku sameeyo wuxuu jecel yahay inuu helo miraheedii waan filayay ama waan ku haminayay in examka kaalinta ku aad ka soo galo laakiin markasto yaani environment-ka ama deegaanka ku nooshahay wuxuu ku yeelan karaa caqabad ardayda oo examination kale marka la sheekaysto wuxuu ku leeyahay imtixaanka dawladda lama saxo markaas waxyaabahaas oo yaani saameyn in ugu yeeshaan waa laga yaabi jiray laakiin aniga dhig shaqo ma sii jirina ilaa hadaf ay go'nay waana aaminsanaa waan ku rajayna hadii si sax exaamka loo qaado oo si sax yaani loo nidaam gareeyo oo wax yaani qaladaada laga ilaasho inaan kaalmaha kaalinta 10 ku horeysa ama kaalinta ku soo bixi karo waa aaminsanahay aad ayaan ugu farxay maxaa yeelay waxaan rajaynayaa ayaan helay ma sha Allah falcelin aad u wanaagsan ayaan kala kulmay qoyskeeda maxaa yeelay dhamaantood waxay soo wada hambaleenayeen markii natiijada lagu dhawaaqay يعني waxaan si wada jira u fiirsaneenay yani telefishinka aabahay iyo hooyada iyo walaalahay oo dhamaantood wada sugayay natiijada waxaan ka helayo xalay markii intaysan natiijada soo bixin ayaan kula dardaarmay in ay soo duceeyaan si aan natiijada examka aan buundo fiican uga soo helo dhamaantood markay falcelin aad u wanaagsan iyo hambali iyo reereyn dhamaan asxaabta macallimiinta ardayda iyo bahaweynta alfaraj iyo familka qaraabada dhamaan iyo asxaabta aad ay macnaha igu soo hambaliyeen horta qof kasta markii timetable la sameeyo hadii aad ka wada dhigto wax akhris aad u adkeena inuu timetable kaas ku dhaqan galo ama jadwalkaas ku dhaqan galo jadwalkii waxyaabo badan ku jiri jiray inaan yaani waqti aan nasto inaan waqtigii kale aan u baahdo xataa aan ardayda asxaabtida ama asxaabta isku xaafadanaha aan waqti la qaato waxyaabahaas badan way ku jiri jireen maxaa hadaa maanta dhan buug fadhido adna waan ku caajisay marka waxaan sameeyay jiray jadwalkiga ama timetable-kiga waxyaabo waqtiga aan nasto iyo waqtiga aan wax barto iyo waqtiga aan asxaabta iskuulka ama aan wax isla barano aan wax ugu celiyo ayaa jiri jirtay marka timetable-ka qof kasto yaani waxa la rabaa in aad u manage gareesho si time aan u nasato iyo time aan wax u barato yaani isku suuro galaan dhanka su'aashii kala daan soo laabto ahayd mata yaani ma qof oo faniga oo dhanka sportska iyo yaani meelahaas ka soo muuqdo kulli horta sanadadii dambe ciyaarista kubadda aad ugu fiicnaan laakiin xoogaha dhalada aan ka ciyaari jiray marka macnaha dhalada aan ka fiirsan jiray aniga ciyaar ahaan in kasta horta dadka qaar taageernimadooda ay kala duwan tahay oo yaani dadka qaar naadiyaashooda si u taageeraan ay waalid tahay laakiin aniga caadi ahaan waxaan u taageerayaa horyaalka Premier League oo kan adduunka ugu caansan in laga fiirsado naadiga Manchester City madaxa sanadka waa ii degsanaa horyaalka ilan qaan mugta dhanka kalena Barcelona aan ka taageeri jiray marka in dhanka Spain waxaan ka taageeri jiray naadiga Barcelona يعني marka qaar aan jadwalkiga wax ii muhiim ah ama ina cashar ku celiyo oo waajib ama casharkaas ay waajib ugu tahay inaan ku celiyo sababtoo ah bari macalinka inuu cashar ku sii daro laga yaabo hadii ciyaarta soo gasho macna yani ciyaarta iyo jadwalkiga markaas waxaan dhaqan gelin jiray jadwalkiga caadiyan luqmaan ahaan ama ardayda dugsiga sare markay ka soo baxdo yani jaamacada ku biiraan jaamacadana waxa la bartaa hal faculty ani caadi ahaan waxa ay dooran ilaa iyo 3 faculty saddexdaas faculty mid kamid ah ayaan baran doonaa oo kala ah maadada caafimaadka engineering-ka iyo airplane-ka ama sida u taqaan kabtanimada ama dooliyaha saddexdaas maadada mid kamid ah ayaan baran doonaa saan rajaynayo macnaha